إن الميت كجناعسته وحيقول لي رجلي نكاس حلقة qaabkan uu ganacsaday anaga ambalaasyaal lahayn waxaan sameeynaa karfanto kale waxaan kala sameeynaa jaayga godadka la geeyo aan heshiis la galnay qabuurahan barakaad dadka hormuud ay gateen deegaanka u tagnay waxaan dhanay maadaama wadanka oo rabshaday dhibaato ay ka jiraan maalin kasta laga yaabo 30-40 qof inay dhimato anaga ambalaasyaheenu meeshii qarax ka maqalno oo qarax ka dhaco si toos aan ugu direen meedadka haday dhaceen ambalaas meedka haday qaado gurma degdeg ay fidee meesha kaliya geey karto waa inay qabuuraha geeysaa Soomaaliya qabuuraha markay geeyso anaga qiimo dhimis gooniya noo sameey jiray oo 40% qiimo dhimis ayaan ku lahayn business connected TV aadan ugu dhawahay magacaygu waa Sooraan waxa ay sheegtay inaad meed iibisay masaay waxa oo ka ganacsatay maxay ahayd qisada la yaab leh ahayd markii ugu horeysay meed ka ganacsana way ahayd waana qisada wax badan ka soo maray horta markii ugu horeysay dhalinyaraan ahayn iska baaga muuda shaqana aan hayn xilligii dawladii farmaajo dagaalada iyo qaraxyada iyo rafaadka ay magaalada ka jireen niyo midaan adeer igu aadan oo xoogay ka shaqeeyo alaabahan maaragtay meedadka iyo waxaas iyo qabuuraha wuxuu yiri naqshada noo haya waxaan sameynaynaa uu yiri qoladan meedadka oo qabuuraha barakaad markaas ay shaqeynay xilligaas loo macnaa siga ambalaasya u shaqeeyay qorshooyin badan oo lahayd marka inaan meed ka ganacsado waxay u dhiirigeliyeen ninkaas xilliga qaabkan uu ganacsaday anaga ambalaasyaal lahayn waxaan sameeynaa karfanto kale waxaan kala sameeynaa jaayga godadka la geeyo aan heshiis la galnay qabuurahan barakaad dadka hormuud ay gateen deegaanka u tagnay waxaan dhanay maadaama wadanka oo rabshaday dhibaato ay ka jiraan maalin kasta laga yaabo 30-40 qof inay dhimato anaga ambalaasyaheenu meeshii qarax ka maqalno oo qarax ka dhaco si toos aan ugu direen meedadka haday dhaceen ambalaas meedka haday qaado gurma degdeg ay fidee meesha kaliya geey karto waa inay qabuuraha geeysaa Soomaaliya qabuuraha markay geeyso anaga qiimo dhimis gooniya noo sameey jiray oo 40% qiimo dhimis ayaan ku lahayn meedadka aan geeyno maalintan waxaan geey jirnaa adiga 6-7-8 maalinta geey jirnay waxa laga yaabaa $40 ina ala meed markaas aan ka ganacsano aan ka helno karfantina anaga meedka marka ku sii diyaarinayna meel kale waxaan u sii sameeynaa hadana meedadka lagu dhaqo oo lagu sii diyaariyo maadaama meedka markuu meesha tago $100 wax ka badan ama $130 xilligaas meedka lagu duugay anagana waxaan naqanay fududeynta waxaan la baxnay shirkadda taakulaynta meedadka oo aan meedadka ku sameey jirnay oo aan meesha ku geey jirnay marka qisadaas la yaab leh ahayd anagana markii inaan iska dhaafano waxa hadana igu sii dhiirigeliyay meedadku way sii bateen marba ka dambayso meedku waa la geynayaa lacag badan aan ka sameeynay dhaqaaleyn xoogay oo kordhay waxaan isku daynay inaan xataa aan sii ballaarino oo anaga dhulal aan gadano oo aan meedadka ku duugano ayadoo sidaas aniga waxa ii imaadaba qaraw habeenka riyo waxa la ceejiya qafa meed igula dhagan waxa leeyahay hebel oo habeen qaadeen oo meed ku duugteen ariyo kugu yimid macna dhunta leeyahay dhigi jiray anoo saasa ayadoo anoo ka cagajiidayo aan islayn xoogay hadana xilligii waxa la galay Cabdi Sheekh Maxamuud doorashadiisi hadana ayaan kadib meedadku way sii yaraadeenba wixii meel la heli karo hadana way yaraadeen meedadku maadaama ay sii yaraadeen anigana aan kala soo kulmay caqabado badan oo habeenka riyada xoogay leegu ceeji jiray ninka adeerkana xoogay inta ka taajiray oo lacag yeeshay wuxuu raniyo maadaama hadda meedadku ay yaraadeen adigana caqabadaas la kulmayso aniga madaxa markeynta meedadkan ah horta meedadka macnaha waxa sameey jiray suuqgeynta meedadka waxaan ahay ninka kaliya isku xiraayay qabuuraha iyo ambalaasta iyo meedadka adeerkana shaqada kor ka lahaay aniga meeshaan tagaya meedadku waa dhacay Soomaan warqabta ambalaas saara meedkan saara meedadku waa la diyaarinay meedku dhintay Soomaan isbitaalada hore laga tagaa meedadku waa la qaadaa marka la qaado waxa la geenay meesha lagu dhaqay wixii lagu dhaqay qalabka ana hayno karfantina anaga gadoono cadarkii cuudadkii jayga xatay meesha geeyona waxa kala sameeynona qoladii oo dhulka lahaydna waxaan kula jirnaa heshiis oo qiimo dhimis noo sameynay marka dhaqaale badan waan ka sameynay marka waxaan igu leeyahay badnay markii aan meed ka ganacsado marka ceejidaas lagu qabanayo ma waxyaabo kale oo kuugula yaabada ma kala niyo ceejidaas waa jirtaa habeenka adoo hurdaa la iska ka ceejina waa walwalay waa riyoone qof ayadu iska dhimata waxa lagu leeyahay macnaha qofkaan aad dil amal oo qofkaan dhimashadeeda xoogay ma saxiixinina waa iska qaadeen anaga waxaan sameeynaa waxaan u sameeynay yani la hubin inuu dhintay kala la aasay
ما يدتك وحي مودا يعني معناها قفكان أنا مركا أنا آسيني أنا ميت كيس أو ميت هاي ينكل دتك بلادك وقلب جلعين وقتها تدا وحي بلي إلا ميت كانوا لو فاقوا إن أنا قف إنه دنتي marka warqado iyo boonooyin waxaan jaraynay meedka inuu dhinto cadeynaya haday qanac weysana qafka faagitaanka loo faago lacag dheeriya loo qaaday meedku sababtoo ah meed oo 3 maal 4 maal meesha ku jiro waa dhinto Soomaa marka qofka ilaa haday tiraado meedka loo faago oo meedka inaan baroobayno lacag dheeriya loo qaaday sababtoo ah in meed la soo saaro hadana dib loo celiyo waa hawl kale waa meed kala dugay lama tahay marka mashruuc saas oo ahay haddana waa soo yaraadaba wixii meed dhimaaya iska yaraadaba marka meed laga ganacsado hadda leeylimaa marka ma santahay ma tihiin lamaana mudarradinayo ubad xalkiina waxaad keenaysaan xarunteena Global Fertility Center oo daawaysa xanuunada keena dhalmalaanta rag iyo dumar nala bilow safarkaaga waaridnimo oo nagu soo booq xarunteena ama nagala soo xidhiir lambarada ku muuqda adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees